mudooyinkii ugu dambeeyay Somaliland waxa kor u kacay hablaha waxbarta ama ku dadaala waxbarashada warbixin amuurtaasi ku saabsan waxa inoo diyaarisay wariyeena Hoodo Qalbi gurigii markaan ku noqdo mas'uuliyad gurinimo iyo hooyanimo iyo reer iyo nin uu isugayay in maxaan ku dhahdaa aniga naftayda ay tabcaan haydan hooyo xaamilo aha waxa dhacaysay in aniga oo ka noolay ugu jiro aan beeshin u shaqeynay waqtiyadii hore waxa aad u liidatay waxbarashada hablaha Soomaalida iyadoo aanay inta badan habluhu ka qayb qaadan jirin waxbarashada kala duwan maadi iyo diini labadaba haddaba daawadayaal mudooyinkii u dambeeyay waxa kor u sii kacaysa waxbarashada hablaha iyagoo inta badan ay habluhu ka qayb qaataan waxbarashada kala duwan iyagoo sanad walba ay jaamacadaha iyo iskuulada dalka ay ka qalin jabiyaan boqolaal hablood taasoo kor u qaaday tayada waxbarashada hablaha oo meesha ka saartay waxbarasho la'aantii hablaha haddaba balaynu wada eegno isbeddelka ku yimi waxbarashada hablaha iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay waqtiyadii kala duwanaa أدنى آذن إسماعيل أو كمدة دمر كاقويان كاه سوماليلاند waxay kamid tahay hablihii waxbarashada ka waayay dhulka Somaliland ee markii dambe waxbarasho doontay dalka aynu jaarkanahay ee Djibouti adna aadan waatan iyadoo ka hadlaysa dhibaatadii ka qabsatay waxbarasho la'aanta dhulkeeda maray waraysi siisay telefishinka cable waxbarashadeedu waxay ahayd waqtiga iskuul hablaha wax lagu baro dalkii Somaliland muu lahayn marka waxa jirtay habaryartay Allah yarxamo ayaa qof reer Djibouti u dhaxday oo halka macallimad ka ahayd iyada marka la ii diray waxbarashadeedii ugu horeysay waxay dalka Djibouti oo aan kalgacayl weyn u hay waayo indhala'aantii Djibouti baa indhaha iiga furtay iiga dilaacisay oo tacliinta ii bilowday iskuulkii ugu horeeyay ee lagu talagalay inay habluhu wax ku bartaan ayaa laga furay dhulka Somaliland gaar ahaan magaalada Burco sanadkii 1953 iskuulkaas oo magaciisa la oran jiray iskuulka boardingka ee hablaha Burco hablihii lagu furay iskuulkaas oo ay tiradoodu aad u yarayd Saadiya Muuse Axmed oo imika ah gudoomiyaha hay'adda Banha Saadiya waxay kamid ahayd qaybtii labaad ee hablaha ee wax ka bartay iskuulkaas iyadoo waxbarashada ka bilowday sanadkii 1963 Saadiya waxay faahfaahinaysaa waqtigii waxbarashadeeda iyo faa'iidooyinka ay waxbarashadu u leedahay hablaha xilligii aniga iskuulka la qoray waxay ahayd dabayaqadii 63 xilliga marka la yaryahay maad maskaxda kuma aan hayn laakiin horta waqti wuxuu ahaa iskuulada caadina loo keenay in fact class dhanoo hablaa ceer gaaba laga soo qoro class dhanoo habloo badan oo ciida ka badan baanu ahayn kulliba hablo badan iskuulada sidaan imka ugu badan yihiin ugu may badnaan jirin markii dambena iskuulkii hablaha ee Burco ayaan 67 soo gaaray laakiin san sheekada ku hayo hablihii naga horeeyay kontonadii iyo waqtiga la soo qoray iskuulada qoladaas dhibaatada ugu badan ku dhici jirta baahida waxbarashada haweenku markasta waa jirta tirada hablaha iskuulada waxaan garanayaa markii dambe secondary-ga anigu Banaadir secondary school baan galay markasta habluhu waa ka yaraayeen inamada aad bay uga yaraayeen inamada markii dambena xamar sideetanadiina hablaha ka badnaa inamada marka uu isbedelay dadku wuxuu soo bedelay fikradda ka haystaan inay gabadh iskuul u diraan markasta way soo bedelaysi mid ka mid ah iskuulada ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Hargeysa soona saara sanad kasta hablaha ugu tirada badan leh ayanu wax ka weydiinay kor u kaca ku yimid waxbarashada hablaha mudooyinkii ugu dambeeyay Ismaaciil Maxamuud Cakuush waa mid ka mid ah maamulayaasha dugsiyada ku yaala magaalada Hargeysa Ismaaciil waxa uu nooga warbixinayaa kor u kaca waxbarashada hablaha maanta waxbarashada wadanku horumar weyn iyo isbedel weyn baa runtii ku dhacay gaar ahaan waxbarashada hablaha ee wadanku aad ayay isu bedeshay ka iskuulaha marka hadii aan u soo galo hablaha runtii wax ka bartay dugsiyada Nuurudiin aad ayay u fara badan yihiin waxa aan ku qiyaasi karnaa imika hablaha hadda dhigta ee dugsiyada Nuurudiin wax ka barta 3,000 oo hablood ayaa hadda dhigta iskuulkeenu hadda joognaa waa iskuulka u gaarka ah hablaha oo ay gelin hore gelin dambaba habluhu ay gaar u dhigtaan markaynu eegno bal isbedelka ku yimid waxbarashada hablaha waqtigan xaadirka ah waxyaabo caqabado badan baa markii hore hortaagnaa hablaha oo ka hortaagnaa inay aad wax u bartaan ama si wanaagsan wax u bartaan horumar badan baa ku mid ah hablihii waxbarashada hablaha hablihii waxay heleen xorriyad runtii ay wax ku bartaan
xorriyad ay inantii markaa macalinkeedii interaction iyo xiriir wanaagsan kula samayn kartay wax ku weydiin kartay wax uga jawaabi karto xorriyad ay inantii ku soo jeedin karto afkaarteeda iyo ideaskeeda iyo wixii ikhtiraacah ee ay hayso ay ku soo jeedin karto runtii waxay u noqotay arrintaasi dhiirigelin weyn bay u noqotay hablihii oo waxbarasho ayay u noqotay horumar weynna runtii waa ay keentay 6,000 oo hablood ayaa ka baxay iskuulka horumar weyn bay habluhu gaadheen waa dhinaca waxbarashada weliba ka gaadheen hodan maxamed xuseen waxa ay ka mid tahay hablaha nasiibka u helay inay magaalada Hargeysa ku dhamaysato waxbarashadeedii kala duwaneed iyadoo isku marna dhamaysay 2 jaamacadood waatan iyadoo nooga waramaysa muhiimadda waxbarashada iyo faa'iidooyinka ay u leedahay hablaha waxaan ka mid ahay hablaha nasiibka u helay inay wax ku bartaan wadankoodii hooyo iyagoon meel fogna u doonanin isla markaana ilaa heer jaamacadeed ka gaadhay anigu waxaan wax ku bartay magaalada Hargeysa waxaan ka baxay 2 jaamacadood jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Adna Aadan University alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan u arkaa nasiib aan dheerahay hooyooyinkay ama dadkayga waaweynaa oo marxaladaha qaar wadamo kale waxbarasho u doonan jiray laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin aniga oo hooyo ah oo xaasa oo maxaan ku dhahdaa marxaladihii hooyanimo maraya ayaan haddana waxbarasho ku jiray waxa jirta caqabadaha iga soo gaaray jaamacadayda u dambeysay oo ahayd Adna Aadan University waxay ahayd bahda caafimaadkan baranayay isla markaana waxa dhacday inaan sanadkii u dambeeyay jaamacadda aan xaamil noqdo anigoo maxay sameynaya anigoo oo buugi diyaarinaya oo shiftigii ku jira oo semesterkii u dambeeyay ku jira haddana inaan xanuunkii hooyanimo maro oon xaamil noqdo ayay igu dhacday caqabadaasi may noqonin mid waxbarashadeedii iga hor istaagta laakiin waxay noqotay mid aan waxbarashadeedii aan sii wato waxa dhacaysay marmarka qaar inaan xoog bila awood u noqdo oon sahli waayaba inaan soo kaco haddana nafa marnaba igama hor istaagin hadafkaygii waxaan doonayay asma yuusuf shirwac waa ardayadii sanadkii dhaweyd 2017 ugu sareysay hablaha imtixaanaadka shahaadiga ee Somaliland iyadoo dhamaysay iskuulka Nuuruddin Secondary School asma weli waxay wadaa geediga waxbarashada iyadoo hiigsanaysa inay waxbarashada ka gaadho heerka ugu sareysa waxaan ardaydii sanadkii 2016-2017 ka qalin jabisay iskuulka Nuuruddin Girls High School yani ka baxday sanadkii form 4 sanadkii dhawaa form 4 ka baxay baan ahay waxaan ahaa ardaydii ugu sareysay hablaha Somaliland aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan ahay ugu yaraan inaan ahay ardayad ay ku faanaan dadkii tacabka galiyay macallin iyo waalidba hadda waxaan dhigtaa jaamacadda Hargeysa University baan dhigtaa waxaan dhigtaa kulliyadda caafimaadka waan jeclahay inaan waxbarashada in fara badan sii hablahana waan ku dhiirigelinayaa sidoo kale inay ka mira dhaliyaan dadaalka maxaan ku dhahdaa ay la soo galeen in badan waalidku ku soo tabcay iyo macallimiinba ugu dambeyntii hodan waxay fariin u diraysaa hablaha kala duwan ee Soomaalida iyo inay meel fiican ka gaaraan waxbarashada hablaha waxbarashada heerkii jecel yihiin way ka gaari karaan wax kasta waad qabsan kartaa heer kasta waad ka gaari kartaa waxaanad ogaataa mar kasta oo carqalad ay ku timaado inay guushaadi soo dhowday waayo guul aan carqalad ka hor imanin ma noqon karto guul maanta fursado badan baan haysanaa oo inay haysanin hooyooyinkeen oo ay wadamo kale u doonan jireen oo xataa gobol kale u doonan jireen magaalada ay ku nool yihiin ay dhici karisay inaan jaamacadiba ku oolin laakiin maanta iyadoo intaas oo kun oo jaamacad wadankeena ku yaalaan ayaabay inagu 100% ka chance badan nahay inay hooyooyin kan siday ahaayeen aynaan ahaanin marka waxaan idinku dhiirigelin lahaa inaad waqtigiina ka faa'iideysataan oo wax barataan oo qeyrkiin la tartantaan ayna marnaba aydan dib u dhicin Hoodo Ismaaciil Qalbi telefishinka Cable magaalada Hargeysa